fadhigii saaka golaha wakiilada Soomaaliland uu shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax waxay saaka xildhibaanadaasi warbixin ka dhageysteen gudida deegaankii kheyraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland oo iyagu gacanta ku hayay xeerka macdanta oo wax ka bedeliye kaabis ay ku soo sameeyeen waxaana xildhibaanadaasi ka hor akhriyay xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan oo ka mid ah gudidii xeerkani gacanta ku haysay xeerkan mar hore ayuu golaha yimi قلوب وعليي وزاردي يجوددي وزاردي لبهانتي وزاردي سفي عم بيوصل شقيصي تحقلي وين بيسيسي رياكشن كي يقوله هنا وحلال وحي متقانا يقولها متقانا كومنت سميين أما أي سوشين سميين ويتحقليين حير آدي آد لبهانتي وراكسن أو حيثو ما أنت ظروفها تاجن ذلك إنك تشوف يا إنه يلا طبعا ليدين شيء ما يو مهمة الحياة كلها هاي هالك ورقة أنا قد بني مهمة الحياة كوان قصة قرني قيمة أولى السومالان قيمة دقالة شقاور أولى السومالان ورقة أنا قصة قرني قدهان حركي مكان وانو يعني قد أنت يدي شوكتي سفي عمان وقباران دقني وحنو أرقنا حير لبهانتي يعني آدي آد ونكسن وحنو أرقنا أوكال حير كانوا إنه يهي حير وقت يسي شوغة ونباهان لبهانتي إن قلوا إسلافيو إنتو وكحلكي سكي قبصلو ما أنت هولا بدن أو iyo kamriye badan oo dareynaya xeerka oo aan shaqada gali kareenin ilaa xeerkan uu hirgalo ayaa maanta dul tuban xeerka kan muddo dheerna xeerkan waxa way sugayeen caalamku de xeer ba hadii la rabo in investment la sameeyo ama horumar la sameeyo waan xeerkii ku habboonaa meesha ay yaalaan annagu haddaanu guddiinahay kheyraadka iyo waxaan oo aanu mataqaana waajibaadka ay gudanay wuxuu noola muuqday inuu yahay xeer dhabahaantii ka jawaabaysan hore u sheegay baaya waxaanu soo jeedinay gudi ahaan sida aanu mataqaana warqadan ku soo qornay aan soo gudbinay xeerka goluhu markuu waajibaadkiisa ka dhameysto inuu xeerka ansixiyo oo xeerkaas noqdo xeer noo hirgala oo inoo mataqaana shaqeeya oo partnerskeena mataqaana ajaanibka iyo kuwa local kuwa in badan ba dalkan macdintiisa si iska aad u qaabdaro sharciga waafaqsan iyo qawaaniinta waafaqsan ay loo gacan togaaleynayay xeerkan waa xeerkii mataqaanaa haday environment ka tahay haday tahay qaybsiga haday tahay kala saarista noocyada kala duwan ee muxuu ahaayay qodista macna qodista ay tahay waa xeerkii ka jawaabay dhammaan arrimaha la tabanayo oo dhan ee u baahan dalka iyo kambaniyada localka ee dibadda ay u baahan yihiin xeerka ku dheeyeen barnaamij waxaan idin soo jeedinay madaxweyne idinkoo sharaf leh in xeerkan la ansixiyo waajibaadkiisa la guto dhanka kale saaka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay ansixiyeen mas'uuliyiin u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu soo magacaabay isla markaasina uu magacaabay xilal kala duwan mas'uuliyiintan oo ay ka mid ahaayeen Salebaan Warsame Guuleed wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Maxamed Maxamuud Cabdi wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Faysal Sahal Jaamac gudoomiye ku xigeenka komishanka shaqaalaha dawladda Umar Cabdilaahi Ciise xubin komishanka shaqaalaha Jabarti Ahmed Hassan xubin komishanka shaqaalaha Cabdi Fataax Maxamed Ahmed xubin komishanka shaqaalaha dhammaanba wuxuu goluhu ku ansixiyay mas'uuliyiintani cod aqlabiyada Umar Cali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.